إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة يا برنامج كين دردارن أو أي مان تمرتين وقتها ليلى علي عبد الله والله يقان ليلى حيس أو قدوميها ورركا هرمرينتا دتك هالأبوركا إيو شقا أبوريدا دتك حرف الله ياشا هذا ليلو كسودو برنامج كا دردارن ما دام أتاي قدوميها ورركا dadka hal abuurka ah iyo dadka shaqada loo abuurayo xirfadlayaasha ah marka maxaad kula dardaarmi lahayd dadkaas aqoonta leh ama wax bartay ama heybad Ilaahay uu siiyay inay wax curiyaan ama ay farsamo kale ay yaqaanaan marka dadka farsamo yaqaanada ah ee xirfadlayaasha ah maxaad kula dardaarmaysaa maanta horta dadka xirfadleyda ah iyo dadka hal abuurka leh hal wax baa rabnaa muhiimada koowaad rabnaa kala dardaarmo waxa weeye qofka hadduu xirfad leeyahay ama hal abuur uu leeyahay asagana uu og yahay waxa waa inuu horta uu asaga laftirkiisa noloshiisa inuu qiraa uu qiimana u yeelaa marka qofka uu qiimeeyo xirfadiisa iyo aqoontiisa bay bulshada markaa qiimeynaysaa asaga waa inuu aqoonsado xirfadiisa qiimaha ay leedahay iyo tayada ay leedahay marka ka bacdi bulshadiiba way ka arkaysaa marka ayagana way qiimeynayaan midda kale waxa weeye hadaa xirfad leedahay ama hal abuur leedahay dadka ehelka gurigaaga kula jooga fiiri oo waxa fiirsa dadka iskula midka aad tihiin ama sidaadoo kale ah because mar walba waxa dhacda qof haduu xirfad reer ka leeyahay badankood waxa dhacda laba qof oo kale ama hal qof oo kale inuu sidaas yahay qofka kale raadi familkaaga ku jira isku tijaabi ina xirfadii bartid isku tijaabi ina labadiina isla shaqaysataan ama because maadaama hadaa heshid qof ehelkaaga ah oo shaqadiina kula yaqaan kulana raba inuu kula shaqeeyo familkaaga marka ganacsi asla salaysan kartaa waa isla shaqaysan kartaa uma baahnid qof shaqaale kale oo meel kale kaaga imaada familkaaga marka koowaad aqoontaada u gudbi midda kale waxa rabaa inaan sameeyo dadka waalidiinta ilmaha haysta oo hadda ilmahooda ay soo korayaan baro inaan la dardaarmo ilmahaaga marka ciyaalkaaga badankood waxaa dhici karta inaysan kulligood isku dhaqan aysan ahayn waxaa dhici karta kuwa jira waxbarashada jecel kuwana aysan jeclayn kuwa jecleen waxbarashada ha maaginina ha caayinina ha fogeynina ha dilnina waxa ilmahaaga iyaga ay rabaan ama ku haminayaan weydiiya wareesta la sheekaysta dhowr xirfadood oo kala duwan ama fiidiyoyo kala duwan wax untusa ilmihiina ogaada waxa ay rabaan wixii ay iyaga ku haminayaan ay markaa rabaan ku gacan ku siiyo oo horumarkooda ka shaqeeya laakiin hadaa ilmihii hadhowta aad fogeysid oo tiraadamiin baa tahay kan baa tahay waxbarasho ma raba kan waxbarashada Puntland maasha Allah way fiican tahay laakiin hadana sidaas ay tahay ilmaha waxbarashada diidaya habba jira ay jecel yihiin inay wax ku bartaan waxa dhici karta inay ilmaha inay wax daawadaan ku barta waxa dhici karta inay yihiin dadka ilmaha inay wixii ay sheegi taabtaan ama ay qabtaan sida wax ku baranaya iskuulkiina hadii laga helaynin qaabiyada kala duwan oo carruurta wax lagu baro waxa dhici karta inuu iskuulka inuu ku caajiso markuu ku caajisana guriga imaado gurigeena idinkii ku buuqdaan iskuulkii markuu tago ku buuqdaan cunugeena uu noqdo qof la fahmin hadhowto markuu weynaadana isagoo careysan buu bulshada galaya wareersan hadhowtana waxa dhici karta inuu tahriibo intaasna waa inta badankood tahriibta keenta iyo waxyaalaha dhibaatooyinka kaleeto marka insha Allah ilmihiina wareesta la sheekaysta gacan siiya wixii ay ku haminayaan